طبعا قيبتي أفراد ووركوا على دين عبد السيد ومالينمو سالسة وصدح يتوانكي سبتمبر ولا باطن يدور أبين كخميستو أي بحيسو أي تبعو سوق ليو سديد في دمو ما تقول خميسة هيد جيس كأفريقيا برامج وين أنا كقاعد لدونا خيرات كودن كن عملاضة ديجان كشدالك سيد الله قضو سيد الله برتكتكريه هشيسيد سيد الله قلو أيضا أي سودو ده هي إن هشيسيد الله صحيحه أيضا كم قلي دون تام برتا تويتر كحاشي كسودو وده وجهنا قيمة عليه كان سوق قيب قاضو وين عسومنتين ولبا dadka daawadayaasha warfar media mar walba meesha ayaga iskale waxayna mar walba aan siinaa ayaga su'aalaha hadalka waxayna leeyihiin priority gaar ah waad soo dhawaad doontaan deedeeb idmo dabashana qiimaha leh waa balansannahay wararka waxaa dhinaca cabdinaasiyada caalamka dhan aan ku bilaabay sanadkan ugu horeysay ruushku afayeenka aqalka Kremlin-ka Nikolai Dmitriev Peskov oo mar walba la hadla warbaahinta ayaa sheegay in aysan haba yaraatee muuqanin wax wada hadalla oo ka soo naasacada kara iyaga iyo Ukraine dhexdooda maadaama aysan jirin ayuu yiri cid arintaasi niyo u haysa waxa uu intaas ku daray in wada hadallada ku aadan waxa laga yeelayo qadiyada Zaporizhzhia xarunta leedahay nuclear power plant ee dawladda dalkaasi gacanta ku hayso ay u muuqato mid kaliya oo ay ka wada karaan dhinacyada kale ee goobjooga ay ka mid tahay IAEA ee qaramada midoobay ka socoto laakiin Ruushku wuxuu sheegay inuusan u arkin dawladda Ukraine mid iyadu iska mas'uul waxa uu mar walba ku eedeynaya dawladdaas in ay u tahay project ama ay u tahay mashruuc dalal kale oo sheeye dawladda dalka Britain ayaa iyaduna gororto qoraal ay soo saartay waxay u sheegtay hogaamiyaasha ka soo qaybgalaya aaska haweeneyda boqorada ahayd ee geeriyootay Queen Elizabeth II inaysan ku tashan in lagu qaado diyaarado ama baabuur gaar ah oo khaas ah laakiin ay basaska dheego qabsadaan warka qoraalka soo saaray ayaa la sheegay horta in madaxda caalamka oo dhan nin walba loo casuumay isaga iyo naagtiisa ama xaaskiisa kaliya la casuumay xataa madaxweynaha Mareykanka waxaa la sheegay in aan wafti kale aysan soo raaci doonin kaliya waxaa la casuumay isaga iyo xaaskiisa oo la sheegay in ay kaliya imaanaan hadhowto markay yimaadaan waxaa la sheegay inay raaci doonaan basaska dadku ay raacayaan oo kale waxayse intaas ku tartay dawladdu inay ku xisaabtami doonto sida hogaamiyaasha ammaankooda loo kala sugayo Mareykanka madaxweynaha lama ogola inuu baabuurta dadweynaha raaco waana shuruuc u gaar ah ilaalinta madaxweynaha waxaana mar walba madaxweynaha dalka Mareykanka lagu qaadaa adeegga loo yaqaan adeegga degdegga ah sida ay wararku sheegayaan muftiga diinta ee dalka Masarna ugu dambeyntii wuxuu qalinka ku duugay in la daldalo nin garsoore maxkamadeed ahaa oo xaaskiisa dilay iyo ninkii gacanta ku siiyay labadoodaba muftiga ugu sareeya diinta islaamka ee dalkaasi Masar ayaa ogolaaday in la daldalo garsooraha la yiraahdo Ayman Hajjaj iyo nin ku caawiyay dilka xaaskiisa oo wariye ahayd kuwaasoo markaasi qorsheeyay in la dilo kadib markii gabadha lagu ballamiyay guri ay marka u horeysa qoysku ay u xaga bixi jireen ama ay u fasax qaadan jireen Hussein Al-Qarabli iyo Mr. Hajjaj ayaa la sheegay labadooda in la daldali doono sida uu go'aamiyay sheekha weyn ee wadankaasi ka ah markaasi arrimaha diinta TV-galeeda Gisa LTC TV ayay gabadhani ku lahayd barnaamij waxaana loo jiray Shayma Jamal bishii June bana sheegay in barnaamijka ugu dambeeyay ay saarto mardam ayaa la ogaaday meedkeeda laga helay gurigaas isagoo ninku iska dhigay inay xaaskiisa ka maqan balse ugu dambeyntii baaritaan dheer oo la sameeyay la ogaaday in xaaskiisa dilay ma sheegin sababta uu dilay iyo sababta uu gabadha u shaqoolay mana kala cadda sheekadaas ilaa hadda si kastaba noqotay dalka Masar waxa bariga ugu dambeysay ku soo badanayay dilka gabdhaha haday yihiin kuwa markay guurka diidaan ragga la haasaawa la qaarajiyo iyo hadii ay yihiinba kuwa la qabe ee la dilayo taasoo ay dawladdu doonayso in laga hortago bariga hore lama dili jirin ragga dumarka dila sida daraadeedna dawladda Masar ayaa markay kiisaskaas soo bateen hadda waxay go'aamisay in nin kasta oo gabadh dila isagana dhigta dhiiga loo daro ee dhinaca kalena dalka isku tagay Imaaraadka Carabta ayaa ku dhawaaqay in qorshe 18 bilyan oo dirham oo lacag ay ku bixi doonto ay ku dhisi doonaan aag dalxiis oo dayax laga sameeyo kaasoo ay sheegeen in dayaxa macbalka ah ee 5 bilyan ee dollarka Mareykanka iyo 18 bilyan ee dirhamka dalkaasi ay noqon doonto tii ugu ballaadhneed iyadoo shirkadda loo yaqaano The Moon World Resorts shirkaddan oo dalka Canada laga leeyahay ayaa la siiyay lacagta iyadoo sheegtay in ay dhisi doonto dayax gaadhaya ilaa 735 cagood oo u dhigma 224 mitir taasoo laga dhisi doono magaalada Dubai ee xarunta ganacsiga dalkaasi dawladda dalkaasi isku tagay Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in ay gogol leedahay in dayaxaasi uu iftiimo isla markaana laga arko magaalooyin badan oo adduunka gaar ahaan kuwa gobolka ku yaala iyo sidoo kale inuu soo jiito dalxiiska iyo qulqulka dadka ee bariga dhexe iyo dalal kale arrintan ayaa u muuqata inay dalkan uu doonayo inuu kula tartamo dalalka kale ee caalamka reer galbeedka oo iyagu bariyihii ugu dambeeyay dhan sheegayay inay tagaan dayaxa iyadoo sheekadaasi Mareykanka ay dhawaan ka fashilantay dhanka kalena dawladda Ibraan ayaa sheegtay in ay habaysay laba nooc oo cusub oo diyaarad ah oo loogu talagalay kaliya inay ka howlgalaan dhulka sahanooniyada sida lagu sheegay waxaana sheegeen in loo bixiyay droneskan cusub oo ah kuwa casri ah oo aysan qaban karin raadarada ay yiraahdeen iyo gantaalaha yahuudu
Arash 2 kuwaas ay sheegeen in loogu talagalay laba magaalo oo waaweyn oo Israa'iil ku yaala oo kala ah Tel Aviv iyo magaalada Haifa. Taliya ciidanka dhulka ee dalkaas oo leeyahay Kiyama Ruus Haydari ayaa waxa uu sheegay inay tani tahay hadiyad gaar oo loogu talagalay in lagu xanuujiyo ayuu yiri Saanoniyad. wuxuu yiri waxaan idin hayaa war cusub taasoo ah waxaanu design gareynay aanu asteenay yiri laba diyaaradood oo drone ah kuwaas ugu casrisanaa ee aan soo saarno aan ugu talagalay in lagu duqeeyo yiri magaalooyinka Haifa iyo magaalada Tel Aviv. tani waxay noqon doonaan ayuu yiri kuwo asali ah oo wanaagsan waxtarna u yeelan doona ayuu yiri dagaalka cusub waxayna noqon doonaan ayuu yiri kuwo aan ku soo bandhigno hadaa rabtaan buu yiri waxa ay sameynayaan mustaqbalka ka ugu horeeya ee bandhig ee military aan suubino ayaad ku arki doontaan waxa uu intaas ku daray inay mar walba ayagu doonayaan inay dhimaan awoodda iyo tadhaxaadda ee gobolka ku leedahay qadiyadaasi dhanka kalena dawladda dalka Israa'iil ayaa sheegtay in ay ogaatay in xarumo hubka sameeyo oo waaweyn ay Iran ka furatay gudaha Suuriya taasoo ay sheegtay in ay mar walba inay bartilmaameedsato ay keenayso duqeymaha ay ka geystaan dhulka Suuriya ciidamada Yahuud ayay sheegeen in ay u tahay qiiltan ayagoo intaas ku daray inay sii wadi doonaan xataa haddii heshiis ay gaadhaan wadamada galbeedka iyo Iran oo ku aadan JCPOA waxayna sheegeen xataa taasina iyaga waalid dhanka kalena wasiiradda gaashaandhigga ee dalka la yiraahdo Jarmalka Christine Lambrecht ayaa waxay ku dhawaaqday in dalka Jarmalku doonayo inuu soo ceshado hogaankii ciidan ee uu lahaa Jarmalku marka la eego ayay tilbalaxaan juqraafi ahaan goobta uu ku yaalo horumar dhaqaale ahaan waxa ay taasi tusaa awoodeena ayay tiri marka inaga inoo taala ayay tiri inaynu awoodeena aragno iyo inaynu iska indhatirno waana taata muujinaysa in aynu la nimaano ayay tiri kiis inoo muujinayo inaan hogaankii military wadanka soo celino ayadoo markaasi sheegaysa inaysan ayadu ka labalabeen doonin arintaasi Jarmalka xataa dalalka reer galbeedku ay ka shakisan yihiin hadduu soo noqdo inay ku soo kacdo ladkii hore iyo waliba sidii loo galay kadib dagaalkii labaad ee dunida markii jabhaarku loo dhigay haddii ay doonayno inaynu ku noolaano nabad iyo xornimo mustaqbalka dhow waa inaan bedelaa ayay tiri oo isdiyaarinaa ka wada arintaas gabadhaas ay tiri waa hadalka meesha ay u dhimanayso Soomaaliya dadku ay doonayaan xornimo iyo nabad inaad ku noolaato waa in nabadaada ay ka baqaan horta kuwa nabadaada jabi kara kow xornimada dadka ku noolaatiin waa inaan cid soo hawaysa karin exactly saas way sheekadu moogta saas ay hadalka u dhigtay waxayna intaas ku dartay inay dedeji doonto qorshe kasta oo dalkeeda kor loogu qaadi doono in uu noqdo wadan wax iska dhicin amaanal